السلام عليكم. way adag tahay inaad ficil qabato ama ficil sameyso. way adag tahay inaad dhaqaaqdo, waa xanuun daran. inaad qabato hawsha ku taala sida inaad dharkaaga dhaqato oo kale ma ahan hawl aad raaxo ku dareemaysid. inaad cibaadaysato ama salaad tukato adigoo maskaxdaada aysan maqnayn ma ahan wax dadka oo dhan u fudud. inaad aroorta hore kacdo sidoo kale ma ahan wax fudud. dareenkaas aan dareemayno oo ah inaan waajahno hawsha noo taala ayaa wuxuu noo diidayaa inaan jiifka ka kacno oo hawshan u istaagno oo aan qabsano. sidaa daraadeed waan iska sii seexanaa oo jiifkeena ayaan wadanaa. waxaan dhex maquuranaa mugdiyo aad u badan oo aanan ogeyn meesha ay ku dhammaan doonaan, sida Facebook scrolling, TikTok, Instagram, wax walba oo social media ku saabsan. waad ogtahay adigu waad dareemi kartaa. waxaan ka quusanay inaan shaqo qaban karno iyo in kale, sababtoo ah waxaan la qabsanay iska jiif. xalka waxaan ka raadinaa inaan ka fogaano xanuunka ay leedahay hawl qabashada. si dhab ah markaan u fakarno waxaan ka fognahay nolosha dabiiciga ah. ka fogaanshaheena xanuunka ay leedahay hawsha waxay noo hogaamisay. waxaan u ogolaanay nolosheena inay hogaamiso hawadeena. waxaan iska daawanaa fursadaha ayagoo naga dalbanaya inaan ka faa'iidaysano oo aan ka miro dhalino. xiriiradeena xataa way sii kala fogaadeen, sababtoo ah qofka markuu isdhaho hebel la xiriir, yacni wuxuu isku sii dayaa inuu taleefanka qabsado, joodariga uu dhabar ugu seexdo, halkaasna uu hawshiisa ku joojiyo. xanuunka wuu nagu hareeraysan yahay, sababtoo ah maanta haddii aan isku dayno hawl walba qabashadeeda waxay leedahay xanuunkeeda u gaarka ah. waxay ku xiran tahay nooca xanuun ee aan dooranno. waxaa jiro 2 nooc oo xanuun ah: xanuunka ay leedahay hawl qabashada iyo xanuunka ay leedahay hawl la'aanta. xanuunka laga dhaxlo hawl qabashada waa xanuun jirkaaga laga dareemi karo, waa jug kugu dhacaysa, waana midda laga helo koriinshaha ugu fiican. sababtoo ah maanta haddii uu qof hawl qabto, hawshaas birri ku laabto, maalin kale ku laabto, wuxuu helaa koriinsho iyo firfircooni intii hore ka badan. inaan noqono qof wax soo saar leh, sidoo kale inaan hawlaha u qabano sidii looga baahnaa in loo qabto. xanuunka aan xilligaas dareemayno ma ahan wax aan yareyn karno, sababtoo ah waxaad ka baxaysaa xuduudii caadiga ahaa ee dadka aan hawsha qaban ay ku jireen, oo ah comfort zone-kooda. waa xanuunkii aan ka dhaxli lahayn koriinshaha u socodka, sidoo kale naga dhigi lahaa qofkii aan u baahnaan lahayn inaan noqono. halka xanuunka ay leedahay hawl la'aanta uu ku baabi'inayo noloshaadana uu gelinayo jahwareer iyo mugdi. طبعا annaga haddii aan nahay dad Soomaali waxaa nugu badan xanuunka noocaan ah, sababtoo ah 24 saacadood waxaan fadhinaa maqaayadaha, waxaan ka sheekeynaa waxaan loo baahnayn iyo waxaan meesha oolin. sababtoo ah waxaan ka sheekeynaa siyaasad iyo wax la mid ah oo aanan waxba ka bedeli karin. sidoo kale waxyaabaha aan ka faa'iidnay oo طبعا negative-ka ah oo aan fiican ahayn waxaa ka mid ah dib u dhiga. hawl walbo aan islahayn qabta, yacni hawshan qabo, waxaan u dhigaynaa waqti kale. waqtigiina wuxuu noo sii dhiibay waqti kale ilaa markii dambe hawshii qabashadeeda aan ka caajisnay. sidoo kale waxyaabaha keena inuu qofka hawl la'aan iska ahaado waxaa ka mid ah taleefankan aan gacanta ku haysano 24 saacadood, yacni wax uu noo faa'iideynayo ma jiro. yacni qofkii waxaad arkaysaa taleefanku iska hayaa 90 kor u wadaa, wax uu ka faa'iidayo wax kale ma jiro. halkaas ayaan kusoo koobaynaa muuqaalkeena. aad iyo aad u mahadsantihiin. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.